السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلب نكسن داود يال ملك استوى دودين نقل سعوتان وقلب النمو سبتها بشا أبريل الله هو عشان لا تنسى ندر بابا كوني اللحية لا تنكا قضبوا دراشين مقردنتان وحا كميدا سمالا أيه وحي كجر تاقب يهام برجو يعبسو وين والله حريدا إن حلقان أي مركزي وجهدو حالة أو دران دنا عكالي إني مركزي هشو قدهام بفرصدو وين أيه هريال waxaa wararku ay tilmaamayaan in dowladda Soomaaliya ay markaasi xilligan muujinayso inay isdiibayso oo gabi ahaanba ay wax walba gacanteeda ka sii baxayaan marka la eego go'aan ama guud ahaan markaasi warar ka soo baxay saacadihii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya oo ka laabatay arrinkii la xiriiray in ay markaasi dowladda dalka Israa'iil sheegto inay ka xidhayso Bab al-Mandab ama ay ka joojinayso maraakiibtooda inay isticmaalaan guud ahaan arrinkaasi muhiimka ah saacadihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen ama ay sheegeen inaanay dowladda Soomaaliya gabi ahaanba qaadin talaabo la xiriirta arrinkaasi taasi ayaa loo arkay sidii warbaahintu tilmaamayaan in dowladda Soomaaliya ay hadda arkayso in wax walba ay ka sii fogaanayaan kadib safarkii madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu ku tagay dalka Istaga Imaaraadka Carabta halka dhinaca kale ay wararku tilmaamayaan in dowladda Soomaaliya isku dayayso in gobolada Awdal iyo Salal ay markaasi muujiyaan in ay joogitaan ku leeyihiin oo tallaabooyin dhowr ah ayaa la qorsheynayaa in laga qaado markaasi deegaanadaas waliba hore markaasi loogu fashilmay tallaabooyin dhowr ah haddana weli dowladda dalka Djibouti iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kama aysan dhamaanin in ay markaasi gabi ahaanba qaadaan tallaabadani oo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku qanciyaan in gabi ahaanba ay markaasi ka joojiso ama ay joojiso marka dhaqaaqyada ay ka wado gobolada Awdal iyo Salal dhinaca kale wararkan soo gaaray waxa qayb ka ah golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa ugu dambeyn markaasi ku guuldareystay inay go'aan rasmi ah ka gaadhaan arrinka la xiriira muddo kordhinta iyagoo waqti dheer ah markaasi ku darsaday inay gabi ahaanba arrinkaasi sameeyaan isbuucan dhexdiisa ayaa la filayaa in golaha guurtida ee Soomaaliland ay go'aan ka gaadhaan arrinka la xiriira muddo kordhinta loo sameeyo golaha ama golayaasha deegaanka iyo soo kale golaha wakiilada waxaa soo kale aan eegi doonaa wararka naga soo gaaray dalka Istaga Imaaraadka Carabta madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ilaa iyo hadda tallaabooyinka uu qaaday xogaha la qarinayo ee ku aadan gabi ahaanba safarkiisa iyo waxa uu ku saabsan yahay dowladda Istaga Imaaraadka Carabta xilli ay wajahayso dhaqaale xumo aad u baahsan maxay tahay sababta ugu weyn halkaasi ay u tagtay ama u tagay markaasi madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro warar hoos waxay sheegayaan in la kulmay mas'uuliyiin aad u waaweyn oo ay ku jiraan madax sare oo markaasi dalal hogaaminaya iyo soo kale wakiilo ka socda markaasi dowlado kala duwan maxay tahay qorshaha ugu weyn ee madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu ka riixayo dalkaas Istaga Imaaraadka Carabta gudihiisa waxaa soo kale aan eegi doonaa madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ma dib ugu soo laaban doonaa magaalada Hargeysa mise hore ayuu u sii socon doonaa oo dalalkii ama guud ahaan safaradii u qorshaysnaa hore ayuu ku sii socon doonaa oo ku tagi doonaa dhinaca markaasi dalka Ingiriiska iyo soo kale wadanka markaasi dhinaca Israa'iil waxaa soo kale aan soo qaadan doonaa wararka la xiriira mucaaradka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay sameyn doonaan sidii ay hore Somaliland u sameysay ama ay casharro ka barteen guud ahaanba Somaliland oo ay sameyn doonaan siirigii iyo markaasi gabi ahaanba Frimbigii ay horey mucaaradka Somaliland ugu mudaharaadi jireen Cabdiraxmaan Suuq warsame ayaa tilmaamay in arrinkaas ay sameyn doonaan taasi oo ah guud ahaanba arrin mucaaradka Somaliland iyo dimuqraadiyadda hana qaaday ee Somaliland ka jirta ay tahay cashar laga baranayo si kastoo xaalku noqdoba dowladda Soomaaliya haddana waxay weli u muuqataa inay isku adkeynayso inay Somaliland tahay markaasi gobol ka mid ah haddana casharada ugu waaweyn ee geeska Afrika laga qaadanayo waxa ay ka soo baxayaan dhanka Somaliland dhinaca kale xogaha markaasina soo gaadhaya waxa qayb ka ah dowladda dalka Pakistan ayaa waxa ay siisay wadanka Imaaraadka Carabta lacag deyn oo ay ku lahayd oo gaadhay 3.5 bilyan oo doolarka Mareykanka lacagtaasi waxay ka imaatay dhanka Sacuudiga kadibna waxa markaasi la siiyay dalka Pakistan waxaana Pakistan ay u sii dirtay markaasi dhanka Istaga Imaaraadka Carabta waxa guud ahaan wararka naga soo gaaray waxaan eegi doonaa bariga dhexe oo xaalad adag ay ka taagantahay gaar ahaan wadamada Carabeed dhaqaale xumo aad u baahsan ayaa leeyahay way soo gaadhay haddaba maxay tahay sababta guud ahaan 40 maalmood dagaalka kaliya socday uu saameynta noocaasi ah ugu yeeshay gabi ahaanba dowladaha markaasi Carabeed waxaa guud ahaan wararkan ka imanaya dhanka magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay mudaharaad ka socdeen daradaas oo looga soo horjeeday ama guud ahaanba dadku shucuurtooda ku muujinayeen kadib dil ka dhacay magaalada oo gabi ahaanba ay ciidanku markaasi lagu eedeeyay inay geysteen guud ahaan mid ka mid ah ciidanka markaasi uu geystay balse magaalada Garissa maanta xaaladeedu way degan tahay gudaha aan bartamaha magaalada Garissa ayaana aan xilligan markaasi ku suganahay iyadoo magaaladu jawigeedu uu markaasi degan yahay xilligan noloshuna ay si caadi ah markaasi uga socoto magaalada sida markaa idin muuqata waxaa sidoo kale saakirnimadii hore aan ka qayb galay guud ahaanba markaasi bandhig ay sameynayeen
ciidanku. qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay wararkan iga soo gaaraya dhanka Somaliland waxa ay gabi ahaanba qabtaan rajo weyn oo ku aadan in aqoonsi ay ka hesho markaasi dowladaha markaasi guud ahaanba dunida, iyadoo dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wadi dadaalo barbar socday oo la doonayay in gabi ahaanba ay kaga hortagto in Somaliland aqoonsi ay ka hesho caalamka. haddaba hadda tallaabooyinka ay qaadaysa dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba xilligan dadaalada socda ayaa muujinaya in Somaliland ay heli karayso markaasi wixii ay raadinaysay muddada dheer. wararkaana soo gaadhay waxaa qayb ka ah wasiirro ka mid ah wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay waxba kama jiraan tahay oo ay markaasi beeninayaan gabi ahaanba in dowladda Soomaaliya ay baabul manda markaasi ka xidhayso maraakiibta halkaasi maraya ee Israa'iil ay leedahay, iyadoo gabi ahaan dowladda Soomaaliya qaar ka mid ah ay ka soo baxday markii safiirka ay u magacowday Somaliland in gabi ahaanba ay xidhayaan baabul manda oo ay tallaabadaasi qaadayaan, balse hadda waa ay beeniyeen. wararku waxay sheegayaan in xogaha markaasi la xiriira arrinkaasi in dowladda Soomaaliya si toos ah loola hadlay arrimahaas inay faraha kala baxaan oo guud ahaanba markaasi ay noqdaan dowlad diblomaasiyadda markaasi ku dagaalamaysa, balse gabi ahaanba aanan qaadi karaynin tallaabooyinka noocaasi oo kale. wararka markaasi hoose ee soo gaadhay waxay tilmaamayaan in gabi ahaan Mareykanku uu qayb ka yahay dowladaha iyagu sida weyn markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ula hadlay arrinkaasina kala hadlay maadaama ay saaxiib dhow yihiin dowladda dalka Israa'iil. haddaba arrinkaasi ka soo yeedhay dhanka markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa markaasi la isku xidhayaa safarka madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro hadda uu ku joogo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta inuu yahay safar rajo weyn u soo wada Somaliland, halka dhinaca kale Djibouti iyo Soomaaliya weli aysan joojinin dadaaladoodii ku aadanaa in gobolada Awdal iyo Salal markaasi laga bilaabo raaqiyo lagaga soo horjeedo gabi ahaanba arrinka la xiriira in Somaliland ay noqoto dal madax bannaan. wararka hoose la soo gaadhay waxay sheegayaan in magaalooyinka Boorama iyo dhanka kale dhinaca magaalada markaasi Zeylac laga qorsheynayo in maalinta 18 May wax ka duwan waxa shacabka Somaliland ay sameynayaan ee dabaaldegyada in deegaanadaasi laga muujiyo, taasi oo markaasi gabi ahaanba la doonayo in lagu muujiyo ama lagu carqaladeeyo marka dabaaldegyada Somaliland ay wado iyo sidoo kale aqoonsiga ay soo bandhigi doonto ee Israa'iil markaasi inay aqoonsatay ah, iyo haddii aqoonsi kale uu ku soo kordho madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro dadaallo aad u ballaaran iyo kulamo aan kala joogsi lahayn ayuu ka wadaa dhinaca magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. wakiilo ayuu la kulmay saacadihii ugu dambeeyay, wuxuu la kulmay markaasi gabi ahaanba madax sare oo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ka mid ah siday wararku ugu soo gaarayaan, isagoo laga yaabo in uu qorsheynayo safarro uu ku tegi doono dowlado waaweyn. waxaa sidoo kale la karkarinayaa mid ka mid ah dowladaha qaaradda Yurub oo isaguna aqoonsan doona Somaliland. faylal aad u waaweyn ayaa halkaasi la isku weydaarsaday, waxaa sidoo kale la isku dhaafsaday markaasi gabi ahaanba warqado muujinaya in aqoonsiga Somaliland uu noqon doono mid sanadkan gudihiisa dalkii labaad ama saddexaad uu ku soo biiri doono gabi ahaanba dowladaha Somaliland aqoonsan. Somaliland waxay hadda kasii quusanaysaa dhanka dowladaha Afrikaanka ah oo gabi ahaan iyagu markaasi u muuqda xilligan in intooda badani midowga Afrika ay ku cadaadinayaan in gabi ahaanba aysan qaadanin go'aan ah in ay Somaliland aqoonsadaan. dhinaca kale xogaha markaasina soo gaadhay mucaaradka Soomaaliya ayaa doonayay inay wax ka bartaan markaas Somaliland iyagoo sheegay in 15 May markii la gaaray inay bilaabi doonaan Siiri iyo weliba Firimbi inay markaasi Xasan Sheekh Maxamuud ku mudaharaadaan oo arrinkaasi ay sameeyeen maadaama Somaliland hore ay u sameysay arrinkaasi. xukuumadda hadda joogta ee madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro hogaaminayana ay hore ugu soo sameeyeen dhinaca markaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. si kastoo xaalku noqdaba weli xaaladdu way cakiran tahay dhanka Soomaaliya, iyadoo dowladihii markaasi waaweynaa ee duniduna hadda ay u muuqdaan inay ka sii niyad jabayaan maadaama xaaladdu mar walba ay soo noqonayso welina laga gaari layahay markaa guud ahaanba markaasi xal rasmi ah arrinka Soomaaliya. dhinaca kale bariga dhexe weli wuu qasan yahay, waxaana u muuqataa in xaaladdu ay marmar kasii dambeysa kasii darayso, iyadoo dowladihiina ay dhaqaale la'aan markaasi soo farasaartay ama guud ahaanba ay soo wajahday xilligan. khiyaarta sharafta leh wada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.